shaqaalaha marti sharafta iyo saxaafadda. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Salaam kadib waxaynu furanaynaa fadhigeennii maanta oo aynu hortaallo miisaaniyadda qaranka ee 2022 waxaynu ku furanaynaa aayaadka qur'aanka kariimka ah. golaha waxa fadhiya 65 mudane. waxaynu ku furanaynaa aayaadka qur'aanka kariimka ah. Sheekh Ahmed Tayyib Adam فليتفضل. الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. quraanka ilaahay nagu anfaco kuwaana qaatana Allah inaga dhigo. mudanayaal sida aad ka warayseen waxaa inala taalay miisaaniyadda 2022 oo golaha loo soo gudbiyey 27 bishii December ee sanadkii tagay wasaaraddu soo gudbisay. halkana uu ka jeediyay muqaddamadeedii wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda. goluhuna ay ka weydiiyeen su'aalo ku saabsan. waxaynu ku wareejinay guddiga dhaqaalaha ee golaha wakiilada oo iyaguna muddo 3 week ah gacanta ku hayay miisaaniyadda shaqo badan ka soo qabtay. waxaan rajaynayaa oo marka koowaad weydiisanayaa xoghaynta iyo dhalinyarada ka shaqaynaysay inay golaha u qaybiyaan lifaaqa miisaaniyadda ay soo gudbiyeen guddiga dhaqaaluhu ha loo qaybiyo mudanayaasha. goobihiina fadhiista oo guddiga ka soo dhaxay golaha mudanayaal si aynu xog uga helo hawshii aynu u dirnay guddiga dhaqaalaha ee ku saabsanayd inay soo tafaftiraan miisaaniyadda 2020 kadibna u eegaan qorshihii wasaaraddu ay noo soo gudbisay. waxaan jeclahay inaan halkan uga yeedho gudoomiyaha guddiga Cabdirashiid oo inoo akhrin doona inoona sharxi doona lifaaqa miisaaniyadda. wuxuu iman doonaa podium ku iman doonaa. waxaan rajaynayaa raggu inay si alxamdulillaah wasalaatu lillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah. waraan gudoomiyaha golaha wakiil waxaan jeclahay inaad fadhiisataan maadaama laga soo daahay oo kursiga barnaamij loo yimid. ugu horeyn gudoomiyaha golaha wakiilada iyo gudoomiye ku-xigeenada mudanayaasha golaha wakiilada shaqaalaweynaha golaha wakiilada dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. mudane gudoomiye mudanayaal guddida dhaqaalaha maaliyadda iyo ganacsiga golaha wakiiladu
iyadoo gudanaysa waajibaadkeeda shaqo ee qaran iyo goloweynaha u hayaan isla markaana ka duulaya awoodaha iyo mas'uuliyadaha uu xeer hoosaadku u jideeyey sida ku cad qodobka 15aad faqradiisa koowaad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo golahan awood u siiyey ka doodista iyo wax ka beddelka iyo ansixinta odoroska miisaaniyadda qaranka ee xukuumaddu u soo gudbiso guddida iyadoo maanka ku haysa xeerka maamulka maaliyadda qaranka ee xeer number 75/2016 qodobkiisa afraad iyo qodobkiisa lixaad faqradiisa koowaad labaad saddexaad iyo afraad sidoo kalena qodobka 15aad faqradiisa koowaad xarfihiisa ABC iyo xarfihiisa ABC sidoo ku cad xeer hoosaadka golaha wakiilada qodobka 61aad guddida dhaqaalaha maaliyadda ee ganacsigu ee golaha wakiiladu waxa ay goloweynaha u qaabilsan tahay isla markaana wakiil uga tahay soo darsidda miisaaniyadda qaranka ee sanadlaha ah iyo arrimaha dhaqaalaha guud ee dalka mudane guddoomiye mudanayaal sidaa la socotaan taariikhdu markii ay ahayd 27 bishii 12aad 2021 waxaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland u soo gudbiyey golaha odoroska miisaaniyadda qaranka ee sanadka 2022 waxaana wasiirka horumarinta maaliyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Dr. Saad Cali Shire warbixintii sanadlaha ahayd ee ku saabsanayd miisaaniyadda qaranka ka jeediyey golaha hortiisa isla maalinta 27 bishii 12aad 2021 intaa kadib shirguddoonku waxay ku wareejiyeen guddida si ay waajibaadkooda shaqo ugu gutaan iyagoo guddidu gacanta ku haysay miisaaniyadda muddo ka badan 2 isbuuc oo guddidu gelin hore gelin dambe iyo habeenba ay shaqaynaysay guddidu iyadoo ka dharagsan xaaladaha guud ee dalka si gaar ahna isha ugu haysa dhinacyada dhaqaalaha siyaasadda waxa ay la kulantay dhammaan daneeyayaasha miisaaniyadda qaranka intii ay ka gaari karayaan iyagoo sidoo kalena dhagaystay cabashooyinka iyo talabixinta kala duwan sidoo kale guddidu waxay maanka ku haysay kana shidaal qaadanaysay warbixintii safarkoodii ay ku soo mareen guud ahaan dalka faahfaahinta miisaaniyadda qaranka 2022 guud marka miisaaniyadda 2022 mudane guddoomiye mudanayaal miisaaniyaddu waa halbowlaha kala socodsiisa howlaha qaranka taasoo laga dheehan karo badqabka dhaqaale siyaasadeed iyo mudnaanaha qorshayaasha dawladda muddo cayiman oo sannad ah sidaynu wada ogsoonnahay baahiyaha iyo haynta ama dakhligayna soo galaa aad bay u kala badan yihiin sidaa awgeed inaynu awoodda saarnaa sida ugu fiican ee aynu isugu dheeli tiri karayno baahiyaha iyo kolba dakhligayna la hayo odoroska miisaaniyad sanadeedka 2022 waxa uu ka kooban yahay lambar 1 miisaaniyadda dowladda dhexe miisaaniyadda dowladaha hoose iyo hay'adaha madaxa bannaan miisaaniyadda sanduuqa horumarinta Soomaaliland ee ay maalgeliyaan wadamada deeq-bixiyayaasha Somaliland Development Fund lambar 4 mashruuca maamul daadashada dowladaha hoose GBLG lambar 5 miisaaniyadda mashaariicda banka adduunka BFM DRM CSSB iyo CAB lambar 6 mashruuca maamulka khataraha dabiiciga ah iyo cuntada ee GIZ oo dowladda Jamhuuriyadda Federaalka Jarmalku hirgeli doonto lambar 7 mashruuca ILED mudane guddoomiye mudanayaal miisaaniyaddani waa miisaaniyaddii 31aad ee qaranka Soomaaliland yeesho isugeynta guud ee miisaaniyadda sanadkan 2022 waa 3 trilyan 447 bilyan 802 milyan 505,538 Somaliland shilin miisaaniyadda dowladda dhexe waa 2 trilyan 410 bilyan 452 milyan 894,335 Somaliland shilin taasoo ka badan tii hore 243 bilyan 452 milyan 429,530 Somaliland shilin una dhigantaa 12.2% halka miisaaniyadda dowladda hoose ay noqonayso 528 bilyan 878 milyan 299,768 Somaliland shilin sidoo kale miisaaniyadda hay'adaha madaxa bannaan
ay tahay 276 bilyan 986 milyan 730,707 shilin ku talagalka darooska iyo dakhliga dawladda waxay sanadihii u dambeeyay si joogto ah u hormarinaysay ururinta dakhliga iyo qarashgalka ururinta dakhliga dhabta iyo qarashaadka dawladda ayaa si joogto ah u kordhaysay sanadkii uu ka dambeeyay iyadoo aynu maanka ku hayno in labadii sano u dambeeyay uu jiray dakhli dheeri ah surplus mudane gudoomiye mudanayaal guddiyadoo ka dharagsan in miisaaniyadda 2022 uu ku jiro dakhli ka badan kii sanadkii hore oo dhan 15% sidoo kale ka dharagsan xaaladaha dhaqaale ee waddanku ku jiro sida abaaraha qiimaha qutul daruuriga oo kacay xanuunka safmarka ee COVID-19 oo muujad cusubi adduunka ka dilaaceen iyo guud ahaan baahiyaha jira gobollada dalka kororka dakhliga qodobada sababta u ah waxaa ka mid ah lambar 1 kororka dhoofka xoolaha oo la rajaynayo inuu kor u kici doono sanadka 2022 marka la barbar dhigo sanadkii 2021 saamaynta COVID-19 oo keentay in xajka la joojiyo sanadkii 2022 taasoo hoos u dhigtay dhaqaalaha guud ee dalka lambar 2 cashuuraha aan tooska ahayn ee badeecadaha soo dega iyo cashuuraha saaran badeecadaha iyo adeega GST-ga kor u kaca badeecadaha soo dega iyo fulinta siyaasadda GST-ga ayaa la filayaa yara in dakhli badan ka soo xaroon doono sanadka 2022 goobaha uu dakhligu ka soo xaroon doono dakhliga guud ee dawladda waxa uu ka iman doonaa 77% kastamada halka cashuuraha bariga ka iman doonaan 20%. waxa kaloo dakhli ka soo xaroon doonaa wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda 3% sida shaxda hoose idinka muuqata shaxda hoose kastamka cashuuraha bariga iyo wasaaradaha hay'adaha kale waayo faahfaahin meelaha mudnaanta la siiyey kharashaadka ee sanadka 2022 mudane gudoomiye mudanayaal guddiyada ka duulaysa qorshayaasha qaranka u yaala waxa uu soo baxay meelo cayiman oo mudnaan qarash guud iyo mid gaar ah la siiyey sida shaxna idinka muuqata qarashka guud ee mudnaanta la siiyey sanadka 2022 waxaa ka mid ah amniga iyo difaaca maamulka dhaqaalaha waxbarashada caafimaadka kaabayaasha dhaqaalaha iyo qaybaha kale wax soo saarka deegaanka biyaha iyo fayadhowrka iyo tamarta mid walba waxa loo kordhiyay iyo percentage miisaaniyadda guud ka noqonayso waa hortiina taala waxa sidoo kale xusid mudan in meelo mudnaan gaara la siiyey taasoo aad ka dheehan kartaan siyaasadda ay ku dhisan tahay miisaaniyaddu kuwaasoo kale ah ciidamada qaranka oo sanadkan loo kordhiyey mushaharkii lambar 2 10% cashuuraha cashuur dhamis qutul daruuriga ah lambar 3 ilaalinta iyo kobcinta wax soo saarka gudaha lambar 4 sii wadida mashruuca shaqo qaran lambar 5 fududeynta nidaamka cashuur bixinta lambar 6 abuurida sanduuqa wax ka qabashada COVID-19 iyo ku darista miisaaniyadda dakhliga ka soo xarooda COVID-19 oo aan hore ugu jiro sanadka lagu soo daray lambar 7 diyaarinta aag loogu talagalay warshadaha industrial zone lambar 8 isu dheelitirka dakhliga ee qarashka lambar 9 kor u qaadida saamiga cashuuraha bariga ku yihiin dakhliga guud lambar 10 hirgelinta dhammaan qaybaha kala duwan ee nidaam xisaameedka Somaliland ifniska iyo kuwa kale waxa kaloo iyagana aan sanadkan mudnaan xusid mudan oo aan lagu darin wax taariifado la kordhiyana ma jirto miisaaniyadda dawladda hoose iyo hay'adaha madaxa bannaan mudane gudoomiye mudanayaal shaxdan hoose waxaa idinka muuqata miisaaniyadda hay'adaha madaxa bannaan 2021 iyo 2022 shaxdan hoose waxa ku yaala hay'adda magaceedii 2021 intay ahayd iyo 2022 intay ahayd iyo difference-ga u dhaxeeya halkan kale waxa xaggan beejka 8aad shaxda hoose waxa idinka muuqata miisaaniyadda dawladda hoose waxa ku jirtay buuggii noo keenay dawladda hoose 42 kamid ah baa ku jirtay 42 kamidana oo kuwan ku cad waayo mudane gudoomiye mudanayaal beesha 9aad
mudana guddoomiye mudanayaal muddada ay guddidu ku jirtay ka soo tala bixinta daraska miisaaniyadda 2022 waxaa mudnaanta koowaad la siiyey dib u eegista lifaaq hore ee goluhu ansixiyey miisaaniyaddii 2022 si ay u xaqiijiso wixii ka fulay go'aamadaas iyo wixii aan ka fulin go'aamadaasna waxay kala ahaayeen waxaa jira 7 qodob oo golihii naga horreeyay ay ansixiyeen oo la socday miisaaniyaddii 2022 lambar 1 go'aamada waa kuwan marka waa in wasaaradda horumarinta maaliyaddu daraasaad dhammaystiran ka samayso sidii kor loogu qaadi lahaa dakhliga cashuuraha bariga isla markaana looga guuri lahaa dakhliga ku tiirsan kastamka dalka iyadoo in ka badan 78% dakhliga miisaaniyaddeenu uu ka soo xaroodo kastamada dalka iyadoo aynu maanka ku hayno xaaladaha amni iyo isbeddelka ka socda mandaqadda aynu ku noolahay lambar 2 waa in dowladaha hoose ay hirgeliyaan nidaamka casriga ah ee maamulka maaliyadda lagana bilaabo 11 degmo ee mashruuca maamul daadejintu ka hanan qaaday sanadka 2022 iyadoo kuwa kalena loo gudbi doono sanada soo socda lambar 3 waa in golaha la hor keeno xeerka lagu maamulayo lacagta elektarooniga ah ee Electronic Money Management Act iyadoo baahi weyn uu qabo guud ahaan qaranku gaar ahaana hay'adaha bahda dhaqaalaha iyo maaliyaddu lambar 4 waa in hay'adda aan lahayn xeerkii lagu dhisay oo muujinaya waajibaadkooda iyo mas'uuliyaadkooda kuna jira miisaaniyadda dowladda dhexe iyo hay'adaha madaxa bannaan ee 2021 ka hor miisaaniyadda 2022 ay xukuumaddu soo samayso xeerarkoodii isla markaana golayaasha sharci dejinta hor keento kuwaas oo kala ah guddida dib-u-habeynta shuruucda diiwaanka sakada ciidanka dadamiska madbacadda qaranka haamaha kaydka shidaalka jamhuuriyadda Soomaaliland lambar 5 waa in laga saaro lifaaqa wax ka beddelka xeerka dakhliga ee ku lifaaqan oo daraska miisaaniyadda 2022 oo si gaar ah xeerka wax ka beddelkiisa golaha loogu soo gudbiyo xeerka dakhliga lambar 6 waa in lagu daraa daraska miisaaniyadda 2022 gunnada sabootiga xildhibaanadii hore ee golaha sida ku cad xeerka maamuuska madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo golayaasha sharci dejinta lambar 7 si loo helo miisaaniyad dhammaystiran oo faahfaahsan waa in lagu soo daro miisaaniyadda sanadka soo socda mashaariicda horumarineed ee ka maqan miisaaniyadda 2022 ee deeqbixiyayaashu bixiyaan mudane guddoomiye mudanayaal guddida waxaa u soo baxay in go'aanada golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland ku lifaaqeen miisaaniyaddii 2022 laga fuliyey 2 qodob halka hal qodobna isna wax laga fuliyey wala shaqay socoto sidoo kale 4 qodob waxba lagama fulin waxaana ka mid ah qodobada la fuliyey lambar 1 in laga saaro lifaaqa wax ka beddelka xeerka dakhliga ee ku lifaaqan daraska miisaaniyadda 2022 oo si gaar xeerka wax ka beddelkiisa golaha loogu soo gudbiyo qodobkaas uu fulo xeerkii dakhliga lambar 2 waa in lagu daraa daraska miisaaniyadda 2022 gunnada sabootiga xildhibaanada baarlamaanka ee ku cad xeerka maamuuska madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo golayaasha sharci dejinta kaasina uu fulay lambar 3 si loo helo miisaaniyad dhammaystiran waa in lagu soo daraa mashaariicda horumarineed ee ka maqan miisaaniyadda ee deeqbixiyayaashu bixiyaan qodobkana qayb baa ka fushay iyadana oo sanadkan miisaaniyadda 2022 waxaa lagu soo daray 2 mashruuc oo cusub oo kala ah mashruuca maamulka khatarta dabiiciga ah iyo cuntada GIZ oo dowladda jamhuuriyadda federaalka Jarmalku hirgelin doonto iyo mashruuca labada isna Inclusive Local Economy and Development ALED oo ay maalgelinayso midowga Yurub labada mashruuc ayaana lagu soo daray sanadkan qodobada aan waxba ka fulin waa in wasaaradda horumarinta maaliyaddu ay daraasaad dhammaystiran ka samayso sidii kor loogu qaadi lahaa dakhliga cashuuraha bariga isla markaana loogu guuri lahaa dakhliga ku tiirsan kastamada dalka iyadoo in ka badan 78% dakhliga miisaaniyaddeenu ka soo xarooda kastamada dalka iyadoo aynu maanka ku hayno xaaladaha amni iyo isbeddel ee ka socda mandaqadda aynu ku noolahay lambar 2 waa in dowladaha hoose
ay hirgeliyaan nidaamka qodobka waxba kuma fulin waa in dowladaha hoose ay hirgeliyaan nidaamka casriga ah ee maamulka maaliyadda laguna bilaabo 11 degmo ee mashruuca maamul daadejintu ka hana qaaday sanadka 2021 iyadoo kuwa kalena loo gudbin doono sanadaha soo socda kaasina ma fulin waa in golaha la hor keeno xeerka lagu maamulayo lacagta elektarooniga ah Electronic Money Management Act iyadoo baahin weyn uu qabo guud ahaan qaranku gaar ahaan hay'adaha bahda dhaqaalaha iyo maaliyaddu kana xog ka fulin وين هيدا aan lahayn xeerkii lagu dhisay oo muujinaya waajibaadkooda iyo mas'uuliyadkooda kuna jira miisaaniyadda dawladda dhexe iyo hay'adaha madaxa bannaan ee 2022 ka hor miisaaniyadda 2022 ay xukuumaddu soo samayso xeerarkoodii isla markaana golayaasha cidajinta hor keento kuwaas oo kala ah gudida dawhabeynta shuruucda diiwaanka sakada ciidanka dadamiska madbacadda qaranka iyo haamaha kaydka shidaalka kuwana xog ka fulin gudidu waxay wasaaradda maaliyadda ku bogaadinaysaa qodobada wixii ka fulay sidoo kale waxay mar kale soo jeedinaysaa in wixii fuli waayay la fuliyo sanadkan waxaan gelaynaa go'aamadii cusbaa ee gudidu ay soo jeedisay go'aamada gudida ee daraska miisaaniyadeedka 2022 mudane gudoomiye mudanayaal gudida dhaqaalaha maaliyadda ee ganacsigu kadib markii ay daristay oo daraska miisaaniyadda 2022 isla markaana dul istaagtay dhammaan qaybaha kala duwan ee miisaaniyaddu ka kooban tahay sidoo kale la kulantay dhowr jeer wasiirka horumarinta maaliyadda iyo madaxda kale wasaaradda iyo hay'adaha dawladda sidoo kale la fadhiisatay lana kulantay dhammaan cid kasta oo guddidu u arkaysay in laga maarmaan u tahay miisaaniyadda 2022 sidoo kale dhageysatay tala soo jeedimaha iyo cabashooyin kala duwan ee la xiriira miisaaniyadda waxa ay goloweynaha si sharaf leh ugu soo jeedinaysaa go'aamadan number 1 waa in wasaaradda horumarinta maaliyaddu 2% ka horumarinta gobolada bari ay ku soo dhamaystirto miisaaniyadda 2023 isla markaana ay soo mashaariicayso 70%. number 2 waa in miisaaniyadda dawladaha hoose iyo hay'adaha madaxa bannaan dib u eegis lagu sameeyo isla markaana loo diyaariyo hanaanka casriga ah ee Standard Chartered of Accounts si kor loogu qaado daahfurnaanta iyo isla xisaabtanka. number 3 waa in dhammaan hay'adaha aan lahayn xeerka lagu aasaasay oo golayaashu ansixiyeen isla markaana hela qondo miisaaniyadeed sida ciidanka dadamiska hay'adda cilmi baadhista beeraha madbacadda qaranka haamaha shidaalka ay golaha ku hor keenaan muddo 6 bilood gudahooda. number 4 waa in miisaaniyadda 2023 lagu soo daraa dakhliga iyo qarashaadka hay'adaha aan ku jirin miisaaniyadda si loo helo miisaaniyad dhammaystiran. number 5 waa in la iswaafajiyo lana daadajiyo lana gaadhsiiyo dhammaan dawladaha hoose ee degmooyinka dalka oo miisaaniyadda loogu soo dhammaystiro qoondada kabka ee 12.5% loona raaco xeerka ismaamulka gobolada iyo degmooyinka xeel number 3/2019. number 6 waa in kaalmada miisaaniyadda ee dugsiyada la siiyo loogu qaybiyo tirada ardayda iskuullada boodhanka wey. number 7 waa in wakaaladaha biyaha iyo hay'adaha madaxa bannaan maamulka maaliyadda iyo habka bixinta qandaraasyada lagu sameeyo maamul toosin lana waafajiyo nidaamka casriga ah ee maamulka maaliyadda iyo habraaca qandaraasyada qaranka. number 8 maadaama qaab dhismeedka komishiga tamarta aanu waafaqsanayn xeerka tamarta qaranka ee xeer lambar 18/2018 waa in muddo 6 bilood ah uu ku saxaa madaxweynuhu qaab dhismeedka komishiga tamarta qaranka. number 9 waa in kaalmada la siiyo kooxaha fanaaniinta qaranka si siman ugu qaybiso wasaaradda warfaafinta qaranku. number 10 waa in diyaarinta iyo soo gudbinta miisaaniyadda loo raaco xeerka maamulka maaliyadda qaranka xeer lambar 25/2016 iyada oo la sugaayo muddada golaha loo soo gudbinayo sida ku qoran xeerka.
11 waa in sanadka 2022 dawladda hoose ee Gabiley ay isticmaasho miisaaniyadii hore ee 2021 dakhliga dheeraadka ee ka soo baxa waa in la mashaariiceeyo isla markaana laga ansixiyo golaha deegaanka degmada Gabiley lambar 12 way miisaaniyadda 2023 lagu kordhiyo mashruuca waa in miisaaniyadda 2023 loo kordhiyo mushaharka macallimiinta iyo bahda caafimaadka 13 in qoondada kaydka qaranka ee ku jira miisaaniyadda qaranka ay wasaaraddu u soo gudbiso golaha wakiilada hadhaaga ku jira sanad miisaaniyad kasta 14 in sanad miisaaniyad kasta ay wasaaraddu soo gudbiso xogta daymaha qaranka 15 in wasaaraddu soo gudbiso miisaaniyad kasta warbixinta faa'iidada iyo khasaaraha mashaariicda maalgelineed ee dawladda ku jirto 16 in magacyada wasaaradaha iyo hay'adaha ku jira miisaaniyadda loo raaco sidoo dhigayo xeerka kala xadeynta nidaamka xukuumadda iyo hay'adaha madaxa bannaan ee xeer number 17/2015 17 in dawladdu xoogga saarto isla markaana dhiirigeliso wax soo saarka gudaha mudane gudoomiye mudanayaal soo jeedinta 17 maray soo jeedinta 17 ee guddidu waxay ka kooban tahay madaxyo ay guddidu wax ka jartay iyo madaxyo ama qaybo ay guddidu wax u kordhisay kuwaas oo guddidu laga maarmaan u aragtay waxaan garaynaa madaxyada wax laga jaray waxa jira meelaha aan wax ka gooynay qarash iyo halkan ku taxan waxa ugu horeeya kharashka alaabta iyo adeegga kharashka alaabta iyo adeegga oo markii hore ay ku jirtay 534 bilyan 290 520 806 ayaa waxaanu ka saaray raashinka ciidanka marka waxa soo haray 443 bilyan 190 milyan 323 shilin waxaan ku dhufanay 5.5% marka waxa noo soo baxay lacag dhan 24 bilyan 375 milyan 522 su'aalan shilin waa kharashka adeegga iyo alaabta waxa ku jira in ka badan 135 madax xigeen baa ku jira oo hoos imanaya madaxa hidhka guud adeegga kharashka alaabta adeegga kharashka lama filaanka ah oo isaguna ahaa 360 bilyan 150 milyan iyo 500 milyan isagana waxaan ku dhufanay 20% waxaa noo soo baxay 12 bilyan 630 milyan iyo 500 iibsiga saamiga fiber optica iibsiga fiber optica waxa ugu jiray miisaaniyadda oo ah saamiga ay dawladdu ku yeelanayso fiber optica 14 milyan baa ku jiray isagana waxaan 14 bilyan isagana waxaanu jaray boqolkiiba 50 oo macnaheedu noqonayo 7 bilyan inaanu goynay sanduuqa aqoon raadiska korarka 2022 oo dhamaa boqolkiiba 40 sanduuqa aqoon raadiska waxa loo kordhiyay boqolkiiba 40 baa loo kordhiyay sanadka 2022 oo lacagta korodhana waxa weeye 7 bilyan iyo 900 milyan boqolkiiba 50 baanu jaray korarkii intii uu korodhay boqolkiiba 50 kaanu jaray maaha tii guud ee waa intii loo kordhiyay baanu boqolkiiba 50 jaray lacagtaanu ka jarayna waa 3 bilyan 950 milyan way kharashaadka kale kharashaadka lama filaanka hore u soo dhaafay hore hoos imanaya laba hidh oo ah qarashka gurmadka ciidanka iyo qarashka aafooyinka kan kale qarashaadkan kale isagana waxa ku jiray lacagta ku jirtay wuxuu ahaa 60 bilyan 260 milyan 298 shilin isagana waxaanu ku dhufanay 20% lacagta noo markaanu ka jarnay waxa weeye 12 bilyan 222 milyan 956 milyan lacagta totalka ay guud ahaan aanu goynay
و9 bilyan 209 milyan 447 Somaliland shilling lacagtaanu heerka inta la ku jirta ka soo baxday waa lacagta cadadkeedu inta leeyahay waxaan tagi doonaa lacagta soo jarray oo $9 milyan ahaan u dhiganta inaanu ama 8.5 milyan u dhiganta waxaan tagi doonaa lacagtaan soo gooynay meelihii aanu ku darray baan insha Allah tagi doonaa mushaarka ciidamada kala duwan oo 8 qaybood ah waxaanu oo horena lagu kordhiyay 20% waxaan ugu daray 10% oo lacagteedu noqonayso inaan u kordhinay guud ahaan marka la isu geeyo 30 bilyan 686 milyan 260 Somaliland shilling ciidamada 10% intaasay noqotay mashruuca doorashooyinka waxaan u kordhinay 7 bilyan 4 bilyan waxa uu jiray 20 bilyan ama 4 bilyan oo Somaliland dollar 1 bilyan oo intan ay noqonayso baan ku kordhinay yadana way gudida tacliinta sare yadana cabasho badan oo ka tiba awgeed iyo duruufeeda oo eegnay yadana waxaan u kordhinay 437 milyan way mushaarka shaqaalaha ku meel gaarka ah ee wasaaradda waxbarashada waxa ogtiin inay dul joogaan shaqaale macallimiin fara badan oo ku meel gaara iyadana waxaan u kordhinay 100 macallin oo lacagteedu noqonayso 1 bilyan xarunta agoomaha ee Hargeysa iyadana waxaan u kordhinay 200 oo milyan kaalmada ubad gargaar oo caruurta special needs ama autism-ka qabta iyadana waxaan u kordhinay 160 milyan way kaalmada ururka naafada ah ee SDHO isagana waxaan u kordhinay ama aanu siinay hore u lahayn 500 milyan kaalmada ururka agoomaha ay tabantaawo isagana waxaan u kordhinay 200 milyan kaalmada ururka Adam Academies isaguna waxa hore u qaaday jirisana waxaan u kordhinay 300 waxaanu siinay 300 milyan mashruuca biyo ballaarinta Ceerigaabo iyadana si biyo loogu ballaariyo maadaama biyo la'aan ka jirto iyadana waxaan u kordhinay 2 bilyan iyo 800 oo milyan kaydka biyaha burco waxaan u kordhinay maadaama aan ay lahayn kayd biyood oo biyaha ka yimaada ceelka ay toos u tagaan xaafadaha ama halkay ku dhamaadaan iyadana waxaan u kordhinay 2 bilyan iyo 800 oo milyan wasaaradda caafimaadka oo warbixintii gudida joogtay soo gudbisay ay ahayd in ka badan 3500 oo temporary ah inay joogaan iyadana waxaan u kordhinay shaqaale dhan 200 oo shaqaalaha temporary-ga ah oo lacagteeduna noqonayso 2 bilyan dhismaha cisbitaalka TB-da ee Boorama oo iyadana cisbitaalkeedu isku dhex jiro keeda TB-da iyo qaybaha kala duwan ee cisbitaalkeedu iyadana ay soo baxday baahi ah safarkii gudida u baxday gobolada baahi ah inay u baahan tahay dhakhtar TB iyadana waxaan u kordhinay 1.4 bilyan Somaliland shilling ama milyan 400 Somaliland shilling waaye dhismaha wadada Baki oo iyadana qaybo badan ay isugu tageen contribution badan la isugu geeyay iyadana waxaan u kordhinay bilyan iyo 400 oo kordhin ugu dar waaye waxaan kale oo ugu dambeyn ugu daray hay'adda gudida wanaag farista iyo xumaan reebista oo iyadana aan ugu daray 318 milyan 914 214 Somaliland shilling ayaanu hay'adda wanaag farista iyo xumaan reebista iyadana aan ugu daray gabagabo mudanayaal guud ahaan gudida waxa ay u mahad celinaysaa mas'uuliyiintii kala duwanaa ee ay la kulantay kuwaas oo dhammaantood si hufnaan iyo mas'uuliyad ku dheehan tahay gudida ula wadaagay
macluumaadkii xogii kala duwanaa ee guddida uga baahnayd sidoo kale guddida waxa ay u mahadcelinaysaa qaybihii kala duwanaa ee ka mid ahaa bulshada rayidka aqoon-yahankii kala duwanaa ee guddida la wadaagay talooyinka wax ku oolka si gaar ah guddida waxay ugu mahadcelinaysaa mudanayaasha golaha wakiilada oo runtii muddadii ay guddida miisaaniyadda gacanta ku haysay si hagar la'aana ugu soo gudbinayay talooyinkooda iyo aragtiyahooda sidaas si la mid ah guddida waxay mahadcelin ballaaran u jeedinaysaa guddida howlaha golaha business committee iyo shirguddoonka sharafta leh ee golaha oo guddida marar kala duwan kulamo la qaadatay isla markaana dhageysatay talooyinkooda kuna saleeyay go'aamada guddida ee hor yaalla ugu dambayn guddidu waxay u hambalyeynaysaa bogaadinaysaa una mahadcelinaysaa madaxda wasaaradda horumarinta maaliyadda oo runtii si xilkasnimo leh guddida ula shaqeeyey muddada ay guddidu gacanta ku haysay ka soo tala bixinta miisaaniyadda 2022 gabagabadii mudanayaal waxaad ka warhaysaan inay dalka ka jirto duruufo kala duwan oo runtii taabanaysa nolosha shacabkiina soo doortay duruufahaas oo ay ugu mudan yihiin xanuunka safmarka ee COVID-19 oo adduunku galay mowjad hor leh xaaladda abaareed oo guud ahaan ka jira dalka maciishadii oo kor u kacday guud ahaan adduunka innaguna aynu la qabno iyo guud ahaan xaaladda dhaqandhaqaale ee ka jira Soomaaliland sidoo kale waxaad ka warqabtaan mudanayaal in miisaaniyadda ay dibdhac weyn ku yimi iyadoo ay ahayd in la ansixiyo ka hor 11 bishii December 2021 maantana ay tahay 15 bishii koowaad 2022 iyadoo aanu ognahay guud ahaan duruufaha aynu kor ku soo sheegnay ee miisaaniyaddu wax ka qabanayso balse u baahan tahay inaynu ansixino oo haddii ay waqti ka badan inta aynu haysano dib u dhacaasi keeni karo in guud ahaan qaranku galo xaalad murugsan sidaa daraaddeed mudanayaal annagoo guddi ahaan ka soo baaraan degnay waqti iyo tacab badanna gelinay waxaanu goloweynaha sharafta leh ka codsanaynaa in daraska miisaaniyadda 2022 lagu ansixiyo lifaaqa guddida allah mahadle assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mudanayaashu ha joojiyeen hadalka marka koowaad aad baynu ugu mahadnaqaynaa ilaahay mahadiisa kadib guddoomiyaha guddiga iyo mudanayaasha guddiga dhaqaalaha runtii warbixin fiican oo aad u tafaftiran bay inoo soo jeediyeen waxaa ka muuqata miisaaniyadda sida aynu ognahay waxaan isleeyahay duruufo badan oo dalka yaallay waxbay ka eegeen waxaan filayaa marka loo eego muddada ay gacanta ku hayeen iyo shaqada ay qabteen hadday noqoto tala soo jeedinta ku lifaaqan iyo baadhista ay sameeyeen waxaan isleeyahay shaqo weyn oo aad u weyn bay qabteen waxaa laga yaabaa wixii aynu ka filaynay miisaaniyadda inaynaan ka wada helin mudanayaashu aanay ka wada helin laakiin waxaan aad u bogaadinayaa مثلا ciidamada oo kale oo horada xukuumaddu u xustay wala wasaaradda maaliyaddu inay koror miisaaniyaddu sameeyeen iyadoo sanadku sanad doorasho yahayna ay ka muuqato koror loo sameeyay doorashada oo $1 bilyan ah inay ka muuqato haba yaraatee dhinaca arrimaha bulshada wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda waxbarashada temporary shaqaalaha ay joogay oo marka hore 300 ay wasaaraddu ku soo dartay 300 oo kale lagu kordhiyay 600 marka ay noqonayso kororka macallimiinta iyo caafimaadka ee la kordhiyay waxa runtii iyaduna ka muuqata 3 gobol oo ugu badnaa warbixinihii looga soo gudbiyay mar walba laba wada taaban karo gobolada oo dhan gobolka Sanaag caasimadiisa Ceelgaabo iyo balaarinteeda in lacag $400 loo geliyay كبيها يبرعوا أو باهي كمقتين أفر بقولوا كنا دولار روجلي بورمه أو يدنا لبا قيبود أو وضدا بكي يو العسل كتير بيدنا أفر بقولوا كنا دولار روجلي أو دمان توتابنا ينور شيء يرمى بالشدة يجونا سدا سلم ده وحلاقي بعض بدن إني مدنياش سويديان اللي جايين كتير وحلا هذا هو أبارة ده إن رئيس بدل كم وكان أبارة بحثنا دل كتيره قد دوسينو سو قد واحد تحقيلين maadaama $2 milyan oo toos ugu jirto abaaraha $4 milyan ay ugu jiraan gurmadka aafooyinka oo iyaguna saameyn ku leh
abaaraha halkaa $6 milyan ay tahay gurmadka guud ee qaranka iyo kharashada lama filaankaana mar kasta laga isticmaalo baahiyaha noocaas oo kale ah marka ay soo kordhaan ay u arkeen inay loo hayo iyo filinta aynu ka filayno in bulshada caalamka inaga gacan qabato in arrintaasi ku dhowdahay in arrinta ayadaa wax laga qabto waxay guddidu inoo soo raaciyeen soo jeedintooda waxaana rajaynayaa inaynu tixgelin doono waynu isbetelaa oo goluhu isbetelaa guddiyadiisuna way isbetelaan waxaanse samaynaynaa insha allahu tacaala dooda golaha ayaan furayaa marka koowaad waxaanan rabaa mudanayaasha inaan siiyo kelmado kooban oo waa ogtihiin hadalku ina wada deeqi maayo aragtiyaha waa lagu kala duwanaanayaa waynuna isku ixtiraamaynaa waxaan siinayaa marka koowaad maxamed abiib yuusuf